Yoga iswaadin salaamay dhammaantiin abo meel walba caalamka joogtaan waa walaalkiin Amiin Xasan idin leh kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube channelkayga haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin inaad taabatid gambaleelka sababtoo la socotid muuqaalada soo socda. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sharciga cusub ee WhatsApp kusoo kordhiyeen app-kooda maxay tahay iyo dadka maxay uga cararayaan inteena u cararayaan. dad badan ayaa application kale soo degsadeen ee isticmaalayaan oo ka xun WhatsApp-ka ayagoo moodayaan inay safe yihiin balse safe ma ahan. application-kaas magaciisa waa idin sheegi doonaa iyo sababtana waa idin sheegi doonaa. horta haddaad tahay qof isticmaala Facebook iyo Instagram ma u baahnid in aad ka carartid WhatsApp waayo waxyaalaha macluumaadka aad adiga laga qaadi rabo already way hayaan waayo WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Facebook-ga waa hal company ayaa wada leh saddexda application-ka. marka dad u fiirisid horta macluumaadka laga qaadayo muxuu yahay iyona intee la sii geenaya. macluumaadka la qaadayo oo hadda la sheegay waxay tahay numberkaaga oo adiga gacantaada aad ku siisay marka aad gelinaysay iyo profile-kaaga iyo magacaaga iyo statuskaaga waxa aad soo dhigaysid. still dad badan ayaa waxay u haysteen in WhatsApp la xiriir rabo balse taas xaqiiqa ma ahan. laakiin sharciga cusub ee kusoo kordhiyeen WhatsApp haddaadan u ogolaan adiga ayaa qadkooda ka baxaya ee asiga qadka kama baxayo. macluumaadka hadda idin sheegay ayay qaadayaan inteena geenayaan. dad badan waxay u haysteen in WhatsApp la soo dhiga Facebook-ga la dhigayo. taasi ma ahan balse ayaga ayaa keedinayo macluumaadkaaga aad adiga hadda idin sheegay ee keedinayaan. maxay u taraysaa waxay tahay waxay rabaan inay kala ogaadaan waxa aad adiga isticmaashid ama waxa aad jeceshahay waayo haddaad u fiirisid applicationadii oo idil ayaan dhihi karaa tabcan laga bilaabo YouTube-ka marka aad muuqaalo badan aad fiirisid haddaad tahay kuwa heesa dhageysta waxaad arkaysaa suggestion-kaaga heesa ayaa u badan. haddaad tahay kuwa muxaadaro dhageysta waxaa kuu soo baxaya channel muxaadaro badan soo dhigaya. haddaad tahay qof daawada filimaanta ayaa lagu soo bandhigaya. sidoo kale Instagram-ka haddaad u fiirisid waxyaalaha dadka aad follow garaysid kuwa oo waxyaalaha ay soo dhigayaan kuwa lamid ayaa suggestion lagu siinaya oo similar ku ah waxa aad follow garaynaysid. saa awgeed sidoo kale Facebook haddaad u fiirisid marka ugu horeyn aad furisid Facebook-ga haddaad ku darsatid 5 qofood oo Soomaali ah kulli suggestion-kaaga waxaa noqonayaan dad Soomaali ah. haddaad ku dartid dad Carab ahna suggestion listigaaga Carab ayaa u badnaanaya. macluumaadkaas ayaa loogu ogaanaya waxaad adiga interest ku tahay. saa awgeed ayay u keediyaan macluumaadkaaga. dad badan ayaa waxay isku haysteen koolka ma la dhageysan karaa ama message-da aan qoreyno ma la ogaan karaa. may koolkaaga lama dhageysanayo still private ayuu ku yahay. labadiina qofood hadlaya oo kaliya ayaa koolkiina dhexeynaya qof saddexaad koolkiina soo dhexgali maayo. sidoo kale message-diinana idinka ayuu idinka dhexeeya qof saddexaad akhris kari maayo ilaa uu ka yahay application-kaaga haddaad isticmaalaysid WhatsApp business-ka. haddaad tahay qof isticmaalaya WhatsApp business-ka bas waxaad ogaataa qoraaladaada waa lala socdaa iyo koolkaaga waa lala socdaa waayo waxay rabaan inay ogaadaan business-kiina waxyaalaha aad interest ku tahay aad rabtid inaad gadatid amaba waxyaalaha aad iibinaysid dad badan oo rabaan waxyaalahaaga inay gaarsiiyaan. ilaa hadda WhatsApp ma aysan sheegin in xayeysiin lagu dari doono WhatsApp-ka balse ani ahaanteeda waxay la tahay markay macluumaadkaaga ay qaadaan marka Facebook-ga aad furtid haddaad ku hadasheen laptop Facebook-gaaga dadyaalo laptop gadgadayaan ama xayeysiin oo laptop ah in lagu soo tusayo ama lagu soo bandhigayo. haddaad tahay kuwa boorsado dharo wax walba aad hawada hasashiin Facebook-ga ayaa lagu tusi doonaa amaba Instagram-ka. taas ayaa hadda ahaan ay sheegeen
in ay يعني macluumaadkiina uu qaadayo. طبعا haddaan rabin in macluumaadkaaga laga qaado bas applicationka ay dadka badankooda hadda u guurin waxay tahay Telegram iyo Signalka. Telegram waa application oo halisteeda wadata waayo masajadiina adiga iyo qof kale aad la hadlaysid private ma ahan, waayo applicationkaas secure ma ahan, yani weli ma aysan ku darin qof saddexaad amaba qof ka warhayn kara ma lahan. waayo haddaad u fiirisid dad badan applicationkaas waxay u isticmaalaan groupyo oo waxay usoo dhigaan yani waxyaalo aanan application kale aanan la ogoleen ayaga, laakiin caadi ayay u tahay. saa awgeed haddaad rabtid in masajadaada private ay ahaadaan ha isticmaalin Telegram, waayo qof saddexaad amaba qof kale wuu ogaan karaa. sidoo kale Signalka ayaa hadda la sheegaya inuu fiican yahay. marka haddaad rabtid in macluumaadkaaga WhatsApp aysan qaadanin waxaa kuu haboon inaad isticmaashid Signalka. haddaad u fiirisid horta wax horta privacy la dhahayo ma lahan inta aad haysatid telephone smartphone ka, waayo waqti walba ay ku rawadaan way kula ogaa karaan meesha aad joogtid. waayo haddaad u fiirisid dowladaha yani iska daaba smartphone-ka, haddaad u fiirisid telefonka tooshlaha ah oo sim card ku jiro ayaa waxaa la ogaan karaa meesha aad adigu joogtid amaba warkaaga la dhageysan karaa. maxay kula tahay adigoo smartphone wadata camera kugu jira wax walba application badan kugu xiran inaan lagu ogaan karnaa? haddaad rabtid in aad private ahaatid waa inaad telefon dhan aad ka go'daa haddaad awoodid, haddaadan awoodinna so yeah privacy ma jiro. horta dadka badan ayaa waxay moodeen in yani waxyaalaha aad ku hadasheen ama waxyaalaha aad dirtay in Facebooka publish loo dhahayo amaba la post gareynayo. taas ma jirto wax saas ah, balse ayaga oo kaliya Facebook ayaa ku ekaan doona waxyaalaha ay arkaan amaba ha noqdo WhatsApp business-ka aad ka hadlayada yani qoraaladiina iyo sawirada aad dirteen. adiga ahaan haddaadan business ahaan u isticmaaleen applicationka WhatsApp business-ka iska daa at least soo degso WhatsApp-ka caadiga ah, taas ayaa kula tali doona. waayo horta Facebook gooni iska dhigbo Soomaalida youtuberada Soomaaliyeed hadda bulshada magac ku leh. WhatsApp-ka ayaa yani Facebook ayaa baroon macluumaadka ay qaadaan ayaga oo kaliya ayay ku ekaanaysaa, laakiin Soomaalida youtuberada ah maxay sameeyaan wax la yiraahdo reaction. haddaan af Soomaaliyeeyo reactionka Soomaaliga ay sameeyaan waxay tahay fadeexo, waxay u joogaan inay dadka fadeexeeyaan oo kaliya, waayo waxay ku tusayaan waxa aadan arkin iyo waxay falaqeynayaan waxa yani aanan habooneen in aan falaqeyno. iyo sidoo kale waxaaba ka daran kuwa la yiraahdo team far, yani waxay ku tusayaan waxa indhahaaga aanan qabanin. horta nabigeena xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii qariya ceebta walaalkii Ilaahay ayaa maalinta qiyaama ceebtiisa asturi doono. anaga inta ceeb ka qarina waa baraadinaa inaad by mistake aan u aragni ma ahan, anaga ayaa basiira raadino. marka maxaad rajeynaysaa in maalinta qiyaamaha in ceebtaada la asturo? horta Ilaahay ceebahena ha asturo, qof dhameystiran ma jiro. marka halahaas ayaan rabaa inaan maanta muuqaalkeeda kusoo koobo. intaan ku wada kulmi doono muuqaalka loo sidaan ah waxaa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.